halkani waa dixda Arto dhinaca bari kaga beegan tuulada Harmukaale ee ka tirsan degmada Dambal ee gobolka City oo qiyaastii masaafo 45 kiiloomitir u jirta magaalada Diradhabe. Arto waxay caan ku tahay biyaha kulul uumiga la isku imiyo biyaha dhanaan iyo waliba biyaha caadiga ah ee laaska ama goofka laga dhaansado. goobtan oo ku taala tuulada Harmukaale oo saaran laamida isku xidha Diradhabe ilaa Djibouti ayaana juquraafi ahaan ka tirsan degmada Dambal ee gobolka City ee dawladda Soomaalida waxayna ka mid tahay ilaha khayraad ee biyaha kulul ee ka jira degmadaasi taasi oo ugu duwaan gashan tahay degmada dhowr siyaabood oo ay ka mid tahay khayraadka dabiiciga ee degmada dhinaca dalxiiska daawashada isticmaalka biyaha noocyadooda kala duwan uumiga kulul oo ah qayb ka mid ah khayraadka tamarta ee ka jira degmadaasi. Artu waxay hodan ku tahay dad iyo dunyaba u fiican tahay geelu saddex habeen buu soo dhaxaa biyaha geela halka uu ka cabo jiilaalka oo dhan bay anfacaan way u fiican yihiin ariga oo kale u fiican yihiin lado kale u fiican dad kale u fiican yihiin oo dawa laga helay waa lagu dacar baxaa waayahay kulayl bay leeyihiin sariir ba laga dul istaadacda kulul waa la dul jeefiyaa dadka xanuunka baaraliiseeg oo kale daxa oo kale daweeyaan waa lagu shimaa waa lagu dacar baxaa dawa laga helay ilaa meel kasta looga mid Hargeysa Djibouti meel kasta ayaa looga yimaadaa dawada Ilaahay ka dhigay meesha maxay faa'iido u leeyahay xoolaha geela waxay faa'iido u leeyihiin Arto waa leeyahay meel saddex habeen buu soo dhaxaa geelu biyaha kala dhan waa la soo dhaafiyaa waa ceel dhanaan geela cabi carro uma baahanayo wax kale uma baahanayo ceel dhanaan leeyahay way u baahan yihiin haasha toddobaad baa geela la waraabin toddobaadka baa jiilaalka oo dhan 6 bilood jiilal anfacaysa dhaxan kuma dhacayso nuur baa ka baxaya way ku fiican yihiin geelu waa ceel geel waa ku rimaysaa waa ku hagaagaysaa maana sanadii horaan miday wali ma gelin imika laakiin sanadii horaan miday anigu waan isticmaalay waxaan joogay toddobaad baan joogay toddobaadka alxamdulillah xididada aan midaan isma shubeynin xididayahay waan ku fiicnaaday waan ku roonaaday caafimaad baan ku noqday toddobaadkii markii dhamaadana waan saga socday bacda imika aabahay baan keenay aabahayna imika anigan oo socotaa hawshu insha Allah inuu noogu bogsadana waan rajaynaynaa biyuuna faa'iido badan bay leeyihiin way fiican yihiin inkastoo dad badan soo buuqanayaan biyahan siyaabo kala duwan oo isticmaalaya ayaana haddana ka helin wax adeeg ah sida guryo la dego iyo waliba adeeg kale kamaalin dhaweyd roob baa aad dabaylo wataalka ka daay dadku inta u badan de Ilaahay halkana daad baa soo maray meel ay ka galaan ma haystaan geedaan hoosteeday galaan meesha yar baa la isku wada yimid marka dawladdu waxa oran lahayn si bal dadkan meelihii ay galayeen iyo meelihii kaniifyadii ku haboonaa loo dhiso ayaa fiicnaa lahayd insha Allah ta'ala u baahan tahay baad leedahay marka bal wallahi waxa u baahan tahay in la casreeyo oo meesha dadka imanaya aqal looga dhiso oo la hagaajiyo oo meelahan kuloo kala casreeyn lagu sameeyo oo la hagaajiyo ayaa u baahan tahay hay waa marxabad lagu sameeyo la hagaajiyo dib casreeyn lagu sameeyo ayaa u baahan tahay leh la imka wax isbedelo oo laga sameeyo ma jirto laakiin haddana waxaan ku rajoonayaa kulli waqti Ilaahay yiraahdo in kasii ku xiran tahay haddana in la helo dad investor maalgashadayaal oo dadka Soomaaliyeed ku dhashay deegaankeena ah inay maal gashadaan ee meeshan wax ka qabtaan ay laftarkayga dawladdu maxay ahaydey dakhli ka hesho waxa weey bilicda dhulkeena ay meesha soo marka qabad laga sameeyay bilicda dhulkeena uu bedelmi marka waxyaabaha soo in laga qabto waan ku rajoonayaa ilaa imkana waan sugeynaa kamana rajo dhigin maantana mar labaad waxaan leeyahay dadkeena hantiilayaasha maalqabeennada Soomaalida inay dhulkooga yimaadaan wax ka qabsadaan dadkoogan maxay caafimaadku imanay meel imka tusaalaan dadkan meesha yimiday qayb baa Djibouti ka imatay qayb baa maxay ahaydey deegaanka goobo kala duwan sida Jijiga waxa weey degmooyinka gobolladeena oo kale ka yimiday oo caafimaad yimid qof walba yimaadana kulli bulshada marka la wareyso meeshan caafimaad bay ka heleen marka waa fursad dahabi oo la haysto oo in dadkeenu ay ka faa'iideystaan dadkeena xanuunsan loo faa'iideeyo xitaa waxa weey meesha hadii wax laga qabto dadkeena xitaa balaagar shaqo abuur bay ka helayaan meesha bilicdeeda isbedeli horumar ballaaran meeshan u baahan tahay marka waxaan leeyahay fursadan yeynayni daafin dadkeena hantiilayaasha inay meeshan wax ka qabsadaan oo ay maxay ahayd fursadna ka faa'iideystaan soo jeedin